waxaan maanta aan dendeyna xaafadda Buuran waxaan aragnay dadkii oo la barakicinay oo dadkii oo waxba ku nooleen nololba ku nooleen qaar meel baa lagu xidhay qaar dariiq baa qaaday qaar waxa la yiraahdaa investment iyo shirkadaha lagu qaaday qaar waxa lagu qaaday meeshan weynibeedka la gaashire qaarni vita la qaatay reer star baa in kala qaatay dad dhulkii Soomaalida saaba loo kala qaatay waa in la gaaro waa in la soo gaaro gurmad degdeg u baahan yihiin oo dawladda daraba waxaan u diraynaa baaq inta Soomaalida haday waxaasi si degdeg uga qaban waayaan ay degdeg dadkaasi ay u heli waayaan wax xala inaan anaka dhalinyarahan iyo odayahan iyo Soomaaliyaanba tallaabo cad ka qaadnay tallaabo Soomaaliyeed ahayd qabalaha Buuran annagoo guddigii sare ee barbaarta iyo xubno kale barbaarta kamid ah oo caana aan soo booqanay markaasi qurux badan ayaa naloo soo dhaweeyay oo ay bulshadeennii Buuraneed ee Soomaaliyeed ay soo dhaweysay aad iyo aad baan maaragtay arrinta ugu faraxsanahay waxayna ka warameen dhaliilihii iyo dhibaatooyinkii soo maray ee ka haysta xagga maamulka suuban dhibaatooyinka ay kala kulmeen oo ugu horeyso dhulkoogii oo intoo la qaatay aanan magdhow fiican la siinin isla markaana aanan dhul bedelana aanan la siinin dhibaatooyin badan bay sheeganayaan waxaan soo booqanay vita dhul la siiyay oo aad u weyn oo kala xidhay magaaladii kuwii ka dambeeyay kuwii ka horeeyay kuwa dhaxda masaajid meel loo maro ayna jirin qabuurtii meel loo maro dadkii meel ay ka adeegtaan una jirin marka iskuulkii oo meel loo maro una jirin oo kala xidhan waan soo marnay arrintan inaan dawladda u gudbino iyo ciday khuseysay ayaan u ballan qaadnay sidoo kale waxaan soo marnay xabsigii oo isaguna meelo badan oo dhul badan qaatay iyo dadkii maaragtay muxuu dhulka laga qaatayna aanan wali sidii loo xaqoogii aanan loo siinin waxaa kaloo hadda joognaa qaybtii maaragtay dhowr iyo 20 hektaar ee loogu talagalay dadkii dhulka laga qaaday in la siiyo dadka cabashooyinkooda markaan dhageysanayna waxaan noo soo baxday in ilaa iyo hadda aanan dadkii dibadejin loo sameyn oo la dejin dadkii laga qaadayna loo diidan yahay inay ilaa imka degaan marka arrinta inay dawladdu jawaab degdeg ah ka bixiso ayaan iyadana sidoo kale ka codsanay sidoo kale waxaan hadda joognaa iyaduna meeshii Red Star baan joognaa oo ay dawladdu ugu tala gashay kayd iyadoo ay sameysatay dadkii dhulka laga qaaday iyaga laftirkoodana aanan wali xal loo helin marka arrimaha oo dhan dhibaatooyinka ay tabanayaan bulshadeenu gudahan ay tabanayso ayaa waxaan isleenahay isbedelka cusub ee Itoobiya ka dhacay waxa uu ka jawaab celin doonaa dhibaatooyinka dadka iyaga haysta oo cadaaladii loo baahnaa ayaa lagu soo hagi dadka xuquuqda dhibta dhacda waxay noqotay Itoobiya beeraleyda xuquuqdooda waa la ilaaliyaa laakiin xoolo dhaqatada xuquuqdooda lama ilaaliyo dhulka beeraleyda in maartay maxaa la qaato lama qaato laakiin xoolo dhaqatada dhulkooga inta badan waa la booba marka boobkaasi inuu joogsado oo xoolo dhaqatadu dad xaq beeraleyda la siman ay yeeshaan inaan halgankeeda ka galno dawladana aan ku qancino nin xoolo dhaqatii meesha haysto meel beeraley maxay la beertu waa xoolo dhaqato iyo beeraley u weeyaan xoolo dhaqatada meesha xoolo dhaqatahan ku haysatay in sida loogu sharciyeeyo inta haystaba uu ku lahaata ay ahayd marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadka walaalaheen maanta oo imanay iyaguna inay abaabulaan xuquuqdooda ilaalsadaan annaguna waan garab joognaa wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh